أنا waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho oo badnaan export import inta aan dhihin laakiin waxaan rabaa laba qodob oo yarina uga faa'iideysto munaasabadan mid ah marka uu horeyso coronavirus markii uu horeysay in laga hadlo adduunka ay bilaabeen oo aad December ay laakiin markii adduunka wake up call ka ay heleen oo dawladaha waaweyn subax walba oo prime ministeradooda wasiiradooda ay soo xubin inta ka hadlayeen March ee waa xasuustaa aniga Toronto lockdown ugu dhacay every morning prime minister ka Canada Trudeau subax 5 saac ilaa 6 saac dadku la hadli jiray qof uu lacag siiyo qof uu wax siiyo dawladda Soomaaliya hadda soo aragtaa inay maanta nawrsato arrintaas ayadoo intaas waqti ah soo joogay mid labaad wasiirkeena ganacsiga qeyr Allah si wuxuu waxaan dhaafnay canshuur dhaafaan sameeynay Soomaalidu waxay tiraahdaa maxay nuugtaa maxay isku nuugtaa horta dawladda maxay noo dhaaftaa oo canshuur ah maxay haysataa ayada marka aan saas lahay ganacsiga waxay isla dhigi doonaan ganacsi canshuur rabtaa inay soo rogto canshuur aniga aan soo rogayo ma dawladda canshuur ma qaadato annagana lacag nooma harto marka waxay noo cafisada ma hayso laakiin haddii waxaa moodaa inaan waqtiga primitive-ka ahay inaan joogno annaga oo aanan la imaanin dawladda timaado halay qaadan jirtay fiirisaa inay wax ka bedesho maxaa jiro maxaa socdo si adduunka looga dhaqmaa ma jirto annaga ganacsatada wax dhoofisay ku soo dejisay markaan nahay kuwa wax soo dejiyaan tankii waxa ku baxo $70 plus ah ku baxdo $70 plus kaasna dawladda less than $20 cashuur aado waa wax laga xumaado inay intaas aado jeebab islaameed haddii laakiin dawladda dhigaysa loo dhaqmaa maxaa la suubiyaa lacagtan yey aadayay gashi lacagta inta soo ceshato ay waxay xaq u leedahay iyada account-keeda gashato oo markay nasiibo saan oo kala ay dhacdo ay noo dhaafayaan because waxay noo dhaaftay haysataa laakiin lacagtana laga qaado dad islaameed iyo kuwa adduunka ku nool iyo kuwa aan aqoonin ay toos u aadaan mar walba markii laga hadlana dadka ma xanuujisa xataa ma aqaan aniga marka ilaah markuu keeni doono ma ogin dawlad inda qabto aragto fahamto xaqeeda raadsato anagana xaqeena na siiso waa sugaynaa mid labaad waa wasiirka maaliyadda wasiir qalooco dhoofin iyo soo dejin canshuura laga wada qaadaa aaway policy-ga jiray aaway dadka wax dhoofiya aniga sisintaan aad u dhoofiyaan sisinta dawladaha Indiya markay dhoofinayaan dadka waxa dhoofiyo canshuur lagama qaado markay sinta dhoofinayso fee ay ku bixaysaa mid labaad waxa la siiyaa $100 ah tanki la siiyaa oo dhiirigelin ah waxba ka fakirin faa'iido inay heshaan $100 qaata dadkaas waa dadka aan la tartamayna annagana 100 aan qaadanay iska dhaaf sintaana markaan habeenka rabno 8 saac gudoomiye gabaraan soo kacshaa baabuurkayga inta soo baxa ma aadi kara dekada ilaa oo asaga inta yimaado general hebel marka ma naqaano waxa u noolnahay ugu shaqeynayna arrimahaas haddii aan wax laga qabanin wadanka horumar ma gaaraayo dhaqaalihiisana ma kacaayo dhaqaalaha wadanka waxa uryaamiyada ma ahan waa dawladda waayo because dawladda ma differentiate gareyn karto ma kala bixin karto waxa la soo dejinayo iyo waxa la bixinayo si u kala bixin lahayd lacagteeda meeshay ka raadsaneed iyo meeshay ka doonan lahayd ma taqaano ilaahay fasalu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamuun haddii idinka waxaan eedan ogeynina warsada dadka ayaga sheegay taas uga baxay export import yar waa markii aan soo noqdo aydan wax yar inaan ka dhufo export import wax kala ma ahan dadka export import-ga sameeyaan ma ahan tujaar sida Bill Gates ah waa dad masaakiin ah xoogaa yar lacag lagu aaminay haystaan ka bacdi waxay noqdeen safiiro ay noqdeen iyo safiir u yihiin ganacsatadii ayada waxay ganacsatada adduunka jirtay oo aamintay oo xoolahooda u soo dhiibtay dhaqaale bixiyaal sida bangiyada iyo institutional kale oo financial ah oo ama wadanka ama dibadda oo dhaqaalahooda ayana qaaday intaas markay isku keenaan ee waxay sameeyeen warshado ay wax ku soo saaraan ama alaab ay keenaan alaabta ay keenaan waxa si formal ah ay si aan informal ahayn uga faa'iideysto macna si toos ah si aan toos ah dawladda waa mar toos ah cashuur uga qaadaa waa faa'iidada tooska ah mid labaad waxay uga faa'iideystaa shaqaale badan abuurmay oo mushaar baxsho aan mushaar siiyaan deegaana joogo beelo waxay nin dheer inay intuu maqaadi gishtaa geel aan ka fadhiyay meeshaan hadda
وأجيها أنت قف عن هينه سداد برود مشقين أنجا هذا المشارك وسداد الجود مشارك وعلى بحشا وعلى قاتا وأسكر فدينا أنا ما يقصنا أن سرفاف جرين كرا عندي من كرا دولة وحي كري ويسين حتى إن إذا عدها سوافر يستطيع أي بحظة وربنجيلو ضدك ديمنك أن كل يدهين إلى لحد وضحية على ورسنين هلا سوى إجارة يعني الله قبسنا ويعني طوريين مشاركة لبحينا أدليست حتى وحبا وأوجها العقد بين من السوايا لكن حاقبتها قلبي أورون تاني إن ما أنت نريراه أنت جوكي أورد وادي مني أنا ما كان دمنه أدين كان وأنا لا دمني يسين لي وعلى ضرورة بدل ورجلايا مركو حعدسنا يا أنا سفير عن هاي وعيبسنا هاي دبي هذا dadku ugu taajirsanay sanaha iska soo wada tuureen hadii idaacadaha aad dhageysteen oo arkaysiin markuu circle socdo markuu istaago dhaxda ku istaago qofta suusaad isku sameynaysaa anaga la alxamdulillah dad iimaan lahaanahay waa sii jiitamayna anaga markaan socoweynana kuwa kala iimaanayo oo shaqada sii wadaayo laakiin dawladda dhinaceeda dhaxana naga hayso markii la hadlay waxay leeyihiin ganacsatada canshuur ma bixiso maxaa canshuur iga qaadaa ani ila fariiso baahiyooda i warso xoolaha dayacan raadso adiga qaado biri markaa dhib yimaado disaster ay timaado nus ii reeb nusna qaado adiga waa mahadsantihiin dalbile show waa bandhig wareed loogu talagalay in lagu soo bandhigo horumarada kala gedisan ee dalku ku tillaabsanayo gaar ahaan dhinacyada ganacsiga iyo wax soo saarka waana hindisa u gaara shirkadda adeegga warbaahinta Sima Media oo aqoon iyo waayo aragnimo durugsan u leh bilada ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha cidii haddaba danaynaysa in hawlaheeda ganacsi lagu soo bandhigo dalbile show waxay nagala soo xiriiri karaan ciwaanada hoos ku qoran soo gudbinta barnaamijkan waxaa taabageliyay Milga Media Productions